السلام عليكم داود الكسور واد حق بحين قارة أنيقا هينو فنانka weyn ee Soomaaliyeed Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Xilaac iyo khaniiskii weynaa ee Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha kooxda Soomaaliyeed ee khaniisiinta ee dalka dibadiisa ku nool. Fanaankan Soomaaliyeed ee Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Xilaac ayaa 24 saac ugu dambeeyay baraha bulshada lagu faafinay kaas oo laga duubay muuqaal anshax xumo oo aan Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Xilaac ahayn oo ah nin u eg kaasoo buluug makeup video kula jira. Haddaba xogta rasmiga ah ee Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Xilaac qofkan ma Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Xilaac ba ma qof kale u egba. Haddaba xogta rasmiga ah waxa weeye ninkan inaanu ahayn Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Xilaac uu yahay qof kale oo u eg oo la tumanaya buluug makeup kaasoo aynu ognahay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Xilaac inuu yahay fanaan Soomaaliyeed oo Soomaalida dhexdeeda kula xushmad ahna fanaan afkiisu gaaban yahay oo aan cidna aflagaado u geysan hadday dhinaca baraha bulshada noqoto. Inkastoo dadka caanka ah uu ka mid yahay dadka farta-ku-tiriska ee afafka gaaban ee fanaaniinta Soomaaliyeed ay ugu jecel yihiin dadku, isla waqti xaadirkana uu ku sugan yahay dalka dibadiisa kaas oo ah nin dhalinyaro ah oo kana soo fiiska ku raadsanaya waxa leen ka digtoonaada 50% dadka wax ku qora ama fiidiyoosha soo geliya YouTube-ka 50% dadku badanka wax u badiyeen been, taas oo ah been abuur weyn. Inta soo hadhay ayaa runa. Haddaba runta ma isqariso laakiin been raad mare. Runta rasmiga waxa waaye in Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Xilaac aanu ahayn qofkaasi uu yahay qof eeg. Assalaamu calaykum daawada waa mahadsantiin. Waxaan kaloo naga xasuusinaa haddii aad fiidiyogan aad dhamaysatid inaad like ku qabato si ay YouTube-ka u sii shargareeyo fiidiyada. Haddii like-tiisu badato wuxuu ku sameynayaa qaab recommendation oo ah inuu dad badan gaadhaan. Haddaba subscribe iyo share iyo like taba nala wadaaga oo xaasidiinta waxaan leedahay waa min sharri xaasidin xaasid al xaasidu laa yaflix abadan. Waa ku mahadsantiin daawada.